السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ganacsatada ah. Magacayga waxaa la dhahaa Farxaan Maxamed Axmed. Waxaan ku noolahay Kenya gaar ahaan Nairobi. Waxaan ahay ganacsade yar yar. Dukaan baan lahaan jiray. Waxaan dhibaato badan kala kulmi jiray alaabaha oo aan ka soo qaadan jiray dukaanada kala horseelada marka qaar dib badan baa iga soo kulmi jiray baawar baa isticmaalaysa gaari ma qabin markaas baawar isticmaalaysa qaras badan ka baxay waxa laga yaabaa hadana in qaras badan laga siiyo alaabtii alxamdulillah rabbil alamin waan ka baxay sababta oo baxana waxay ahayd yaraan saaxiibanahay gabar walaashiisa baan isbaranay gabadhii waxay dhahday ganacsi iyadoo yara ogaa ganacsi yar haysato waxaan arkay gabadhiyo ma sha Allah oo awal ritaada ahayd hadda hol si isku badso ayada alaab badan keentaba oo ayada dukaanadii waxsiis haddaan gabadhii walaashtay walaalay waxaan taa keensadaa wuxuu jiraan qaaska idaadi camal markaan dhahanay waxay ugu dhahday warniyaho website waxa jira oo website weyn ah oo warsida.com la dhaho baan isbaranay oo la xiriiray iska diiwaan galiyay adiga sax samee iska diiwaan gali macluumaad badan baa ka helaysaa macluumaadkaas warshado badan oo aad u fara badan oo wadamada aad u horumaro kale ay waxa la dhahay ku yaalo kale baad ka helaysaa si direct waxa uu soo qaadanaysaa waxa la dhahay kambaniyasha alaab fiican oo very quality waxa ka helaysaa meesha iyadoo price koodi iyo wax dhan ka helaysaa marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan Soomaalida gaar ahaan ganacsatada website-kan aad buu mustaqbalkayga iga bedelay hadda ma sha Allah waxaan tigsanayaa hadda muddo yar aan ku jiraa laftigay inta afar bil camal aan ku jiraa alaabta hadda waxaan sameeynayaa mar anaa waxaan sameeynayaaba retailers-ka hadda inaan wholesale u bedelo oo alaab badan keeno baabuur ha ahaato bagaash ha ahaato adii wax walba oo hadda ganacsiga adduunka hadda uu ku saabsan yahay marka waxaan u baaqayaa dhammaan Soomaalida ganacsatada inay website-ka iska diiwaan galiyaan oo ay maxaa la dhahay barnaamijkooda iyo ganacsigooda si uu u horumaro وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.